degdega laysuma jeclaado dukaan calmashadu ma taal lagu yidhi saaxiibkeegu waan qalin leh cabdiqaadir qalin leh bandhigiisa ka dhici doona hoteelka la dhaho isha burco ama si saad u kala taqaanaan ama hadraawi hol fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg oo aad ku farxdo ilaahay ha ku siiyo waxaan ku leenahay annagana warar degdeg ah ayaad naga helaysaa sidaad halkan ku aragto waa hodan online oo uu ninkeeda geeriyooday youtuberada caanka ah ee qisooyinka dhabta ah soo gudbisa oo ninkeedii maanta London ku geeriyooday ilaahay ha ku naxariisto ayaan ku leenahay sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa Sakariya Shakaarte oo xabsiga magaalada Burco lagu xiray war xasaasiya ayaan idinka sida isaga iyo waliba wiil kale oo lagu magacaabo Bulshaawi oo isna magaalada Burco dadka su'aalo dhex weydiiyay sababtii lagu xiray ayaan halkan idinka wadna sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa Malik Abdallah wax weeyaan nin waxa weeyaan an bedelaya Fahad Yaasiin warkii horeba war soo dhaaf oo reer beled weyne ah nisa ayaa loo magacaabay war degdeg weeyaan sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa Farxaan Cabdi Cali oo ay gacan ka xaqdarin magaalada Muqdisho ku jirta ilaahay ha ku naxariisto ayaan ku leenahay sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa Ismaan Muuse oo ay gacan ka xaqdarin ku dashay magaalada Muqdisho degmada Kaaraan wiilka kalena afkooda ayaa lagu dilay maalin kasta wiilal Soomaaliyeed ayaa la cunaa ilaahay idin naxariisto ayaan ku leenahay warkii horeba war soo dhaaf Mursal Muuse oo fariintii ugu dambeysay u diray fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan oo hees uu qaaday waxaan ku hadaaqaa inaan halbowlaha anigoo hurda kaaga heesee erayada halku dhiga leh ee uu ugu soo riyooday xalay hore oo hawada u soo mariyay salaanta maanta yana barnaamijkeena ayay ku jiraan haddaba aynu ku soconno qisada yaabka badan geerida naxdinta badan ee ku timi waxa weeyaan walaasheen Hodan online oo waxa weeye xaashigeeda uu ku geeriyooday dalka Ingiriiska maanta caruur bay u lahayd waxa weeyaan halkaa waxa weeye waa la wada soconaya waa la wada limanaya waxa weeyaan waxaan leenahay ilaahay ha ku naxariisto xaashigii ayaa ka geeriyooday Hodan waxa weeyaan waliba geerin naxdin badan bay ahayd sidoo kale waxa weeye Sakariya Shakaarte intii taqaana wiilka magaalada Burco lagu xiray maanta sababtii loo xiray maxay ahayd waxa la leeyahay waa la isku haystaa wixii magaca ku bixiyay Sakariya Shakaarte waxa lagu xiray horta amarka waxa soo dhiibay barisaafka cusub ee magaalada Burco loo magacaabay sababta lagu xirayo kaliya ayaa ahayd su'aalo uu dadka weydiiyo badana oo maxay yihiin su'aaluhu horta sidaan war xaqiiqo ah ku helay waxa la yiri naanays ayuu u bixiyay barisaafka inta lagu xirayba intaas ahayd wiilkan kalena isna garanayna waxa lagu xiray balse isna waa la xiray labadooduba xabsi baa loo taxaabay haddaba inagoo intaa kaga soo gudbayna maanta magaalada Muqdisho xaray toole laba wiil maalin walba Muqdisho waxa weeye dad ba isku cuna oo waxa weeye isku cuna maaha waa midmid yar yar ayaa waxa weeye nin saaxiibkii ah ka dhamaynaya oo si yaro kadisa u cunaya wuxuu ku oranayaa waxba isku qabsanayaan dabeetana wixii bay isku qabsanayaan nimanka labada nin midba lagu dilay degmo midna afgooya lagu dilay midna waxa lagu dilay degmada Kaaraan bal maxaa lagu dilay bal maxaa loo dilay oo ma laga hadlaba maanta hadday ahaan lahayd Hargeysa ama Burco ama meel ka mid ah Soomaaliland anoo been sheegay waxaan hubaa tusaale waxa kuugu filan imanka Sakariya Shakaarte baraha bulshadu haysta waxa soo wada qaatay dhammaan hadda waa wiilka yar ee youtuberka la iska xiray wax lagu xiray aan la garanay ka waran wiilasha magaalada Muqdisho lagu cunay maanta cid ka hadlaysa lama arag maxaa loo dilay maxaa loo cunay mid baa waxa la leeyahay wali ma buu helin cadaaladba oo maba ogaba degmada dhan in wiil lagu cunay taasa yaa badan iyana
warkii horeba waa qiso xanuun badan waxa weeyaan mid sidaan ku hayo xaqiiqo dhaba waxa cunay nin saaxiibkii ah baa ka laacay mid kalena niman baa waxa weeyaan nolosha u diiday nolosha uu ku horumarayay ayay niman u diideen bal maxaa looga hadli waayey maxaa waxa weeye dadka caanka u soo qaadan waayeen maxaa waxa weeye loo baahin waayey si ay dadkaasi cadaalad u helaan bal may ahaato shugshida bal may ahaato meel kale magaalada muqdisho ciidiba ka soo hadli mayso dadkii wax ku noqda inkastoo magaalada horumartay oo maanta ay waddo saxa qaaday mirmir yaroo waxa weeyaan ducufa oo waxa weeyaan hoostana wuxuushka ah ayaa ku jira magaalada laakiin way soo socotaa maalmihii wacnaa waana la hayaa shidkii wanaagsanaa maanta meelay caasimadeennu ka wanaagsan tahay oo ay raacday male shidka toobiyaha maalin baa waxa weeyaan boqolaa lagu cuni jiray maantana midhka lagu cunaaba laga soo hadlayaaba taasaad ku garanaysa inay nabad noqotay siyaasaddan iyo nimankan madaxda iyo waxaan ha iswaraaqaano ha isku saydhsaydhaan balse nina tiisaba daryeela tu kale u tura ayuu mid waliba leeyahay nin walba wuxuu ka fikerayaa meesha waxbuu gashaday nin walba wuxuu leeyahay haddii maanta aad wax samayso adigunbay ku saamaynaysaa nin walba dabaq dheer markuu ka dhistay caasimadii isaga isu danaynaya taasaa waxa weeye horseed inoogu filanba haddaba war kaloo yaab badan oo naxdin leh baan idin wada hodan oo ninkeeda maanta si kediisa u geeriyooday ilaahay ha ku naxariisto waan kaaga tacsiyeynaa maadaamaad youtubera tahay waxaan ku leenahay waan kula qaybsanaynaa murugada iyo geerida xanuunka badan ee kula soo daristay haddaba war kaleaan idin wadaa maanta war kale ayaan idin wadaa degdega ninkaa waxa weeyaan cabdalla lagu magacaabo oo goor dhoweyd nisa loo magacaabay goor aan sii dhoweyn ayaa loo dhiibayba mid hore horta way isku afgarteen maalmo dhexdaasa mid la rabay in loo dhiiba balse waa laga shakeeye wax la yidhi almasuq maasiqiya ilameereysiya weeye ninkani nin kaleynu baaraynaa waxaa lasoo helay halyey reer beled weyn ah oo fahad yaasiin bedeli kara nin fahad yaasiin bedeli kara ayaa lasoo helay halyeygaa cabdalle oo waxa weeye takhasus u leh oo hogaamin iyo shuruudo iyo waxa weeye nin adaga oo lasoo xulay ayaa waxa maanta isla garteen rooble iyo madaxweynaha isla gartay inay ninkaa u dhiibaan xilka ugu dambeyn goor dhoweyd ayaa loo diray warqadda loo diray oo u xaraysanayd dad badan baa wax soo xaraystay balse markii la eegay dadkaasi waxa la yidhi waa raggan ila meeraysay inala ciyaarayaan oo halkanunbay cadaaladna waxba samayn maayeen balse waxa loo baahan yahay nin geesiya oo laba xiniyood maaha 4 xiniyooda baa loo baahan yahay oo sida fahad yaasiin halyey ah oo hagi kara nin dowlad hagi kara dalyaqaan siyaasiya ayaa dadku dantiisa shiciliyin warka kale aan idin wada waxa weeye fanaankii mursal muuse ahaa oo hodan cabdiraxmaan ee muddo imaka 3 sano miyaa ay ka maqan tahay ninkiiba wuxuu qaadayaa mursal muuse cumar fanaankeenna wuxuu leeyahay aniguna waraaqaha wuxuu leeyahay shimbiryow dabaylaha daruuraha dhex maraya daayinkii umaa orodku ku dawgalay ku dagaali maaye wuxuu leeyahay adaa duuri karayo weliba dawaafee degdeg iga gaadhsi warqadaha daboolan hodan cabdiraxmaan dheere noloshii quruxda badnayd wuxuu leeyahay goormay iman gabadhan sheelaha weli wuu sugi la'yahay kolley sidaan war ku haya xaqiiqaha hodanna way soo socotaa sanadkan dhammaadkiisa iyo gudihiisa meelahaasay kusoo beegan tahay xilligay ka sheegi mayna balse waa isla sanadkan gudihiisa unbay imanaysa hargeysyana kasoo degaysa halkaana mursal muuse iyo waxa weye mar kale noloshii quruxda badnayd iyo heesihii shidnaa ee gawaadhida la saarnaa ee waxa weeye dunidii casriga ahayd ayaa mar kale dib inoo istaari doonta mursal muuse oo aan social mediaha ku badnayn ayaa isagu gabadhiisa iyo reerkiisa iyo noloshiisa khaaska ah ay gaar u tahay taa waxba lagama hadla taasoo kale balse nolosha dhabta iyo shacaylka dhabta ee ay weli isu sii hayaan ee weliba waxa weye dadkuina ay ku soo shiiteen ee waxa weeye tusaale ay u noqdeen dad aad u fara badan
waxa weeyaan mursalyahoodan maanta la leeyahay waa leelaya qayska soomaalida oo la sugi kari la'yahayba haddaba mursal muuse cumar ayayna sugi la'nahay heesaha quruxda badan oo iyana ku qabanayo adigu bishan gudaheeda kulli showna way ku qabanayaan baa filaya magaalada Burco iyaga fanaaniin kale mursal muuse noloshu isugu toosan tahay iyo nolosha quruxda badan oo laba caruurana loo hayo oo waxa weeye alaabtii fiisayaasha iyo wixiina ay u xareysan yihiin ayaa sugi karara inay mar kale soo noqoto hodan iyo nolosha quruxda badan waxaan leenahay ilaahay hay suuqin barakay haddaba waxaan ku leenahay xaqsoor TV markasta ku xidhnow warar degdega oo xaqiiqooyin dhaba ku salaysan sida nooga barateen geesiyaasha garabka iskaaga garab taagan waxaan leenahay ilaahay haydin guuleeyo na soo booqo markasta waraad weyn ayuun baa